noqonona laga yaaban yahay yaa abla sheegaysaaba alaan rabo naftigaaga inaan wax kaa barakeeyo ku taabto kowdhe laakiin hadda wasa kii difaacay waan iska garanayna anigay soo gelisid markaad sheekaduba ama teedii waxa bilmalowda xanistirkan aduu kugu soo socdaa iska qabsan oo dubaale maxaa dhahda daadku intaanu ku soo gelin baa la iska moosaa soo maahayn mamay wallahi horta hableena Soomaaliyeed ma sha Allah tabarakallah wakaal iska arag sariix marka laga yiraahdo xagga dhaqanka ama wax walba ayaga horta ku fiican lama helin karo hablo qaaliya jirda in yar oo qaladaha jira intaasna waa la saxi doonaa raguna naftirkiisu ka marna qaladaad badan oo jira inta qaladka dumarka Soomaha inta qaladka waxay tahay in adoo qofkii bariis iyo baastinta isla dhacdo oo meel fariisato aad jimmy sport sameeyeen in lagu qaadan aragti ka warso dhibaato ma maskiinkan oo kale aanu kugu soo aado oo qalbigiisa iska furan yahay kaala arag ku sheekeynaa laakiin tawar hadii la yiraahdo iyo qaadad xogaa waxay naqanay waxa ii fududina tanaasulo moogta xilkaas qof kale loo raadiyo raado wallahi billahi taasabaan hayn ha marka qaadada iyo waxa naga ilaaliyo maaragtay la isqa qaado iyo xogaa qofkii awoodo ku helo macnaha nin laba lafood ku dhacaha haba tiraado hal liiqa qaado laakiin adiga ciyaarade ilaa imka ragga jimka ciyaaraan isticmaaliyeen ma ar six bag yaa lagu fashilmay iska daa ana ku oge six bag marka qofka loo jeedo qof ahaan waa okay laakiin waxaan dabiici ahayn oo adigu dawo iyo biro la isaga keenay xoog ma aha in six bag iyo murqo u leeyahay qofka moogta xoog waa qalbiga xoog waa mid daacad ah oo macnaha yani dabiiciga ah ma fahantaday ما هذا كان سيجس باج لوسطو يشو مرقها اللي اسكو سو ديسو كان حتى نفتكيس ولا اسكو فاهم waxa qaadi karaan waarintaada inaad arqaal taasan been hayn yaa markaas way six bagune qofka quruxdiisa jirkiisa inuu wax ka kaalmay maana awood dil yiraahdo awood uma soo kordhiyo quruxda jirkiisa macnaha wax ka qayb qaata kaliya ma fahanti inta hadda bal nagu soo xasuusin gabdhaha waagi six bag waa laga foqay hadda inan halkan ku jirta gabadh waxay tiri magaceega ma raba inaan sheego waxay tiri anagu ragga Soomaalida bidaartan ku nacana saaxiibay ku diray arigaana maxaad galeedahay waxaad ujeedada dhan buu ogahay koodhe oo koofidan waxa dhibka keentamiya baraanu bidaar malihi wax yar oo maaragtay ninka la yiraahdo Axmed Zaki ay saray moogta oo yiri inta yar hore al xiirtaa xarakan moodna moogta markii tirada xiirtay moogta هاي أحمد زكي أنا سريو أنت هرب معناها فاشون ويلا حيرتيري بدار معها وحير وسكت دحى ما فهمت هاي تنكر بدار وحمد أنت أنا تعرف عذر معها هاي يا ما تصنكي بالله جلاس قال هاي أحلى نطبحها بدو في سكسي منس يا مركم حاترين هذا المركز واسدا شيكادو ده marka gabdhaha dayiga naftirkooda waxyaabo badan oo lagu naci karaa jiray adayaan bal meelahan ka turtuurin waxa ya badan hadii marka la yiraahdo tan kale dhibaato jirto filsanay gabdhaha Soomaalida ma sha Allah way qurux badan yihiin bana la caay hadana quruxdoodii waxa laga yaabaa inay dhibaato u keento qof quruxdiisa dhibaato ay u keento ka waran meesha qof wanaag iyo farxad uga keenin lahayd gabar hadii qurux badan tahay iga quraaniga in sidaan aan qalmin wayde sideen camnina aanu qal maxaa ka wadaa nin macnaha aan u qalmin de qofka nin aan ku habboonayn marka sidee u daydayaydanin qurux badan oo kala aragto isla weynto waa moogta qurux badan isku qabtaa moogta ama aanu nin qurux badan loo raadiyaba ninka quruxda badan leeguma baxda ninka haduu qurux badan daawanayo ma korkiisu cirka marayo saaban waa furaya salaama بأمد مود سان شيء وقر حن أذو رادينايو وكل حواشي كل حواري مدوميت كذا كروح بدنيا كان أروح المركز دوما قاعدتين مش كبحلة أبوه هو أساس أنت إسلام هاي كان بدار ولا هاي كان سيكس باج ملها كان العجم لها كان قاري موتو أنت إسلام هاي أقيرين كي وحاه هلمت فتالة أو بين بدن وهل يدون وحبا إسلام هاي فهمت هذه dhibaatada jirto waa intaas markaa ina qarka iska tuurtaan waxoogaa maaragtay quruxdiina liisan naqan mid idinka bixiso dooqida ka qabado maya walaalo wuxuu ilaahay qoro maaragtay horta qof walba qofkiisun buu helaa ma ogtahay inta kale meesha taalaana waxa weeyaan orodoo badan fadhiyo badan ba ka dambe maahmahdaan aniga saare by filson
haddaad oradid ma haragtay mida hadda la xamaysamaya haddadan laxamka kuu saaray ma fahantay sax marka inaad arqaali heedhe waa yahay inaad arqaali qof maasha Allah kaali iska aragaa tahay laakiin adigu waxaan kala talinaa kaliya shakhsiyan yeesan kugu dhicin taaso bal maaragtay inta u fiirso islaada maaragtay ya iska macquul oo ma duu ka hor yimaado ku guur ku yaa oo isdhiin bal mid ameestirna raadina hadda kor aslaa waxay tiri leeyahay sheekay yar ku sheegaa wax iska qosala xabad yar fool xuman idin keenay gabramaayo waag markaas sanasa Allah firsad ma kana guursatay ma kana guursatay xabad yar fool xun oo laakiin de ya de meelo badan oo kale ka habaysan hadda kor waxa la mutaqaana inanba yani nin aad fool xun ay qabtay marka ninkii yaa ka lumay ma tacbay jira sanka faraha ka daaniyo way kuleen maxaa sankii baan cunay waxaan sameynaa hay dhasankii dhagiye meel kasta cuntay hay diiwad sheekada gabadha ninka dhumaaleer ninka qabay hay haduu ka lumay dadna saldhigii tagtay oo waxay tiri ninkiiga muddo la ahay anigirna oo hayso mogta ninkii xoogaa iska adigu anoo kala ahay hay iska fool xun askartii wuxuu ku tiri ninkaaga soo yaalaa leeri markaasay tiri waa nin cad oo dheer oo joog leh oo timo jilacsan oo ilaahay kuma darnaadee dabeecad wanaagsanaa oo qosol badan oo fanax lahaa aduu nin rag ah inti macnaha qof u koonto dhan ay ku tilmaamtay maragta dacamigi yaraayo raadinaysay oo la joogaa wuxuu yidhi ahooy saas uma olin aabe iyada istaamo badan oo qurxanay sheegtay mogtahay askarta u sheegtay canugiya wuxuu yidhi hooy aaba saas uma akeen markaasay tiri bal naga aamus balaayeelayo noola bedelay aabaha ooyadii foolxumada ka wase haddii noola bedelaayo naga aamusay tiri haddii naloo bedelaayo foolxumadiisa ma fahamtay inna lillahi wa inna hay wayna bedelatay rabtiba bedeluu bay tir bedeluu naloo bedelay tiri naga aamus kaa foolxumaay ku dhalay yani micnaha dar dib lagu soo celinin marka warcaawiya ka dhaaf Soomaalidu waa xalaale wax ay tabaay kuma jiraan may aniga way yara ixtiraamaan intooda badan mid waalano markaan aanu qabiil waxa ka hadlan baa laygu yara kacaayo baalaha la iga rifaay ya inta kale oo waa la taageersay ma sha Allah waxa tireenaad qabiilhan laqado qabiilka hadda kuma arag wiliga ka fogaw waxyaabaha ma arag dadka qaar ku kasbi karin cadu ku ka fogaaday sometimes ma gaariga ka dhacayo waxa la yiraahdaa ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa tirma maqasheesta mar baan salaamada ka yara dhacaano markaas aan la iga shaqeeyaate wallahi ma qofka bil aadika dad u sawir badan yahay dad baa jira ka daba geenaya mogta dad baa jira shaqo kala bahaynin ba inta mooyaane marka iska caadi wax dhiba ma lahane la shay daqaalida dadka qaran laga yaabaa inay micnaha ay ayagu naftirkooda dhibsadaan oo jaaniska wax ka rabaan bal hadii nin uu jiro maaragtay toobig macna qaar baa halkan ka soo bedelu ninkan bedelu qaar baa taariikh nolol ya qaar baa deele qaar baa halka ka soo maaragtay annagana markayga aawe sidii maaragtay ciyaalkeer marka ciida maaragtay xaqal ciid kala qaybinayo صح qof walba qaybtiisu rabaa moogta ana madaxweyne shanta Soomaaliyeed baan ahay moogta xaaji dab casar baa bedeshay ana xaaji dab casar baan bedelay saacada laga bilaabo ana iftiinka u soo fadhiista dadka ee balahay yara si fiican hay daawadaane kuri laba boqol ma arkaysaa hadda ya kun iyo labadaas boqol aa arkaysa maragtay timahayga bale warbali sugtimahayga jareertaan aan qariyay meesha ka qariyay hay maxaa tireenaadeen markaa sheekadayga dabadii marwo iga dheh kun iyo labada boqol maragtay hadda ku daawanayo ilaa hadda waxa barnaamij oo topic aan ka hadlayno ma lahan moogta wallahi inta badan xaqiiqda anu micnaha xaqiiqdan ka hadlaa moogta ana ka koow kun iyo labada boqol ku daawanaydo
wejigagaas quruxda badan maahane wallahi baysan wax kala daawanin ma fahamtay may hablaha xitaa meesha ku jira hablaha ku jira damacal hablaha naftirkooda biyana iga way kala maseeraan may habluhu ma hablaha aniga igu jira igama maseeraan naadeer ha igu darin dadka adu ma inaad dadka igu dirtid baa meesha u soo gashay wariyaha inaad waa kaasta marka imka mawduuci doodii baa furan moogtahay inamada Soomaaliyeed iyo hablaha Soomaaliyeed wallahi way ku jecel yihiin qof la jecel yahay hadda macnaha qof la jecel yahay moogta oo shacbiyad leh وما شاء الله وقلب نذف انت اسمك كلي قروح معها موقت قروح وما ترتب بقول قرحنا جرتي قلب وناق ماركت اي كفتنك اي قسلك iyo tan kale ayaa dhaxdaas video mar waxaan daawaday oo inama aad u doodaysid ku xirna Liibiya waa ilmeenis mar hadii si loo fiirin wadinida ka marna moogta in xariista ma wasdeer qalbi jilicsan hay qalbi jilaac ay ugu dambeeyay sanadka aakhirkiisa ha والله كاسهي محضر بل أصحابك كلنا وقت عن سينا نادر قالي هي نادر قالي وكو سلامة خير بدنا نكون رجينا أصحابك قارب السوق قارب لقيا على نفتك إن حكمة أي هايان والله المرقة كمان بحو إيكتهاي لا يوه سلامة نادر ونو برنامج كلا دي لا يراد مرولبو أنا ما حسنت هاي نادر قالي باي هاي أنا قاعد بنكون سلامة يا أبد ما حسنت هاي سيد الشرف طلع قروح بدن لا أدي قلق قاعد برنامج يا أنا أد بنك أجمد عنا ولا المعان ولا إيه كسلنتو أنا كم أصلا تجارب كأسيدي هينا هاي السلام عليكم هاي هيا ورثتنا هيا باشا يعني كسو بكفتيان يستيقظ قاعدتي أنا من سرتني ونساشنا لقول قبلها ساقة بنا قبلها بناش رغم ما كنت قبلها نسوده وياه بناش برجل صوبتها حسيت قبلها نجاح يا حدينا أنا في الجناح الدمر كان خصوصا متى قبلها يجوا بكان بعض واحد في الجناح ده أنا اسكور عن قرحي محل ساعة في عنا قرحة ويورد سليتها معناتها ما ينور والله الحمد لله ده كم بقيا واحد كويري والله كان لين سكتشي فبعنا هاي غير كان شدنا يا كوده يا ها ده مو قاعد يسوي تيو قرحي وعن البرنامج أنت قرح بدن برنامج waxa laga hadlayaa barnaamijku waxa laga hadlayaa rag iyo dumarka keebaa jacayl badan horta bal jacaylka laftiisa kulba film baan dadku saaraya kulba xaga waxay ku soo dhacan karleen ya jacaylka laftiisa waxa xoogaa in jacaylka rag iyo dumarka qof keebaa jacayl badan horta dadkan bini'aadankan horta xigmado kala duwan baa ku jira ma ogtahay marka horta wajigaaga anaga soo qolka madow ka soo baxo ma leerkan daaranayaa suuqa iga raadaxada marka waxa weeye bini'aadankan aad u jeedo maaragtay bini'aadankan aad u jeedo xigmado kala duwan baa ku jira marka qof walba kala duwan wuxuu aaminsan yahay oo aragtidiisu buu hadlaa marka jacaylka anigu waxaan ka aaminsanahay yani runtii waxyaala kala duwan ma garanaysaa kolley wallaahi dee ragga iyo dumarka hadday noqoto raggaa jacayl badan marka runta laga hadlo welibana wallaahi hadda wallaahi waa magacii ilaahaya anu لا تلعب بالناس معناها waxaan ka hadlayaa ragga anigu aan ka mid ahay ma garanaysaa hay kolley dee macnaha ragga weerar badan dee waa garanaysaa ma ogtahay haye kow marka haddii yani dhinaca weerarka badan baa jacayl badan saasan ka wada hay laba waa ku hay waa ka rago hadana
waxaan ku yiri inaad arqaale waxaan ku yiri may maqashaa horta codkayga si fiican ma maqashaa si fiican ma ku maqla waxaan ku yiri horta jacaylka ragga jacayl badan ilan maaha mawduuca waxa laga nagaga dhigine waayo rag waba la garanaa dumarku inay kan jacayl badan inay kan naxariis badan adiguna ninnimo baa ku qaaday waa ku sideen aadir waa run horta marka si loo eego jacaylka anu si ka yara duwan baan u aqaana mataqaana waxa u yaqaana hay Soomaalidu nin yani male iyo female yani oo siiba waliba de gabar iyo wiil oo kale to rabitaankooda iyo magaranaysaa waxyaalahaas uma Soomaalidu u taqaana laakiin jacaylku aad buu tiro badan yahay oo yani waxyaalo badan baa soo